banaanbaxan oo lagu taageerayay hadalkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka jeediyay furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ahaa in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacayso Soomaaliya isla markaana la doonayo in golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ay dad ku yeeshaan shacabka magaalada Muqdisho ugu horeyn waxa warbaahinta si wada jira oo la hadlay madaxa arrimaha bulshada degmada Buurruba iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada waxayna sheegeen in ay mar walba taageerayaan dawladda federaalka Soomaaliya ee ay hogaamiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ugu dambeyn waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Buurruba Cali Shariif Cabdullaahi isagoo sheegay in mar walba shacabka iyo maamulka degmada Buurruba ay taageerayaan dawladda federaalka Soomaaliya kana soo horjeedaan wixii ka soo horjeeda dawladnimada
dalkan cadowga ay la saartay daacadnimada ay la shaqeynaysaa ku taageernaa dowladana ha guulaysato soomaaliya ha raacdo cadowgana cabsado aan gacmaha isqabsano dowladnima la deeqdo hadiina qofmina nama deeqo wadadkii dowladda ayna soo gaaray dalka weli ka jiray maantana waad garanaysaan waxaa ku leeysanayo intaana qofay maanta intaa usoo istaageen dowlad jacaylka iyo horumarka iyo waxqabadka dowladda soo gaarsiisay ciidamada qarabka siday oo amniga suuliga la garab taagan ururada bulshada maamuladana dhammaantaan u malaysanahay waxaan garab taaganahay dowladana inay horay socoto oo ay tillaabta qaadaan ku faraxsannahay ha guulaysato soomaaliya ay raacdo Bishaar Ibraahin Aadan warbaahinta Waamo degmada Buurruube ee gobolka Gado.